kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi sida bay daabacayso jirada Gazzetta dello Sport waxa la soo xiganaya madaxda sare kooxda kubadda cagta ee Inter Milan inay wali aad u baadi goobayaan saxiixa xidiga u dhashay wadankaasi Argentina ee Lionel Messi oo maalmahanba ku jahwareysan mustaqbalkiisa Stadio Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barcelona. Lionel Messi ayaa inta badan loo badinaya in gabi ahaan uu diyaar u yahay ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta ee Barcelona kadib markii laacibka dhawaan uu si cad u sheegay inuusan la shaqeyn doonin gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Jose Maria. هذا wiilka reer Argentina Lionel Messi ayaa sidoo kale xiriir aad u wanaagsan bala leh tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayadoo inta badanna warbaahinta wadankaasi Isbaanishka ay xusayeen in Lionel Messi haddii ay dhacdo dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Barcelona inuu ku biiri doono kooxda ku ciyaarta garoonka Etihad Stadium ee Manchester City balse sheekada ku aadan kooxda reer Talyaani Inter Milano ayaa ah inay aad markaa u doonayaan ciidankaasi inay ka salgaaraan sheekadiisa bartay ku dambeyn doonto waxaana Inter ay doonaysaa in ciidankaasi Lionel Messi ay la soo saxiidaan haddii uu ogolaado ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Barcelona ayadoo Inter isku diyaarinaysa inay ka xog badiso kooxda ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Manchester City oo aad loo xiriirina ciidankani balse Inter waxay xusaysaa inay sii wadi doonaan kormeelkoodii ku aadanaa la socodka xaaladda xidiga reer Argentina ee Lionel Messi. tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaa markaa gabi ahaanba sheegay inuusan kalsooni weyn ku qabin goolhayihiisa Kepa waxaana uu doonayaa xil ciyaareedka soo socda inuusan shabaq waardiyaha uusan ka dhigan doonin Kepa oo la doonayo xil ciyaareedkanba in uu gabi ahaanba ka dhaqaaqo gegada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea sida ay daawacayso jirada Spain hadda wuxuu Frank Lampard uu xusayaa in xilligan xooga ay saari doonaan dalabkoodii ku aadanaa goolhayaha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard uu guul muhiim ah ka soo gaaray dalabkiisa ku aadanaa ciidanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ee Kai Havertz oo sheekadiisa markay soo afjarantay maadaama labada kooxood ee Bayer Leverkusen iyo Chelsea isku fahmeen in ciidanka uu soo dhaqaaqo gegada Stamford Bridge waxaana halkaas riyadiisa ku rumowday tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard oo markaa sheegay muddo aad u fara badan ba inay aad u baadi goobayaan ciidankaasi Kai Havertz waxaana xilligan la xusayaa in tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard uu doonayay isbedel xooggan uu sameeyo maadaama hore ugu soo guuleystay ciyaartooy ka mid yihiin Hakim Ziyech iyo Timo Werner sidoo kalena uu doonayo in ay soo dhamaato sheekada ku aadan xidiga Kai Havertz waxaana la xusayaa in tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard uu bilaabayo ololihiisa ku aadan qaybta dambe waxaana uu doonayaa inuu xoojiyo dalab ku aadan goolhayaha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Oblaga waxaana sidoo kale uu sheegayaa ninka kan xilligan shabaqad u wardiyo kooxda kubadda cagta Chelsea Kepa inuu aad ugu fashilmay xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Chelsea maxaa yeelay goolhayaha kooxda kubadda cagta Chelsea Kepa ayaa laga dhaliyay 47 gool 33 kulan oo Premier League sidaas darteed tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard way u cunto muweysi sheekada ciidankaasi waxaana uu qirayaa inuusan noqon karin waardiyaha dhabta ah lagu aamini karo shabaqada kooxda kubadda cagta Chelsea xil ciyaareedka soo socda waa inaan isbedel xooggan sameynaa ayaa laga soo xigtay tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard oo doonaya dib habeen xoogganba inuu ku sameeyo meelaha ay ka cajisan tahay kooxda kubadda cagta Chelsea xil ciyaareedkani waryaanada kooxda kubadda cagta Liverpool Mohamed Salah Sadio Mane iyo Roberto Firmino ayaa laga cabsi qabaa xil ciyaareedka soo socda inay markaa ka dhaqaaqi doonaan Stadio Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool falaqayaasha sportiga ayaa inta badan ba aad uga hadalaya xaaladda ama marxaladda ku aadan saddexdaasi ciyaartooy maadaama labada xil ciyaareed ugu dambeysay ay awood dheer ay ka sameeyeen tartamada kala duwan ee qaaradaha Yurub xil ciyaareedka inuu ka soo gudubnay natiijo xooggan ay ka gaartay tartanka Champions League iyadoo isbedel weyn ay kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka sameysay horyaalka wadankaasi Ingiriiska oo muddo 30 sano kadib ay ku guuleystaan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League sheekada aad ay ugu adag tahay iyadoo inta badan falaqayaasha ay xusayaan in Liverpool ay ku jahwareysan tahay marxalad ay ku cishan karaan saddexda ciyaaryahan ee Mo Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino labada ciyaaryahan ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee Mo Salah iyo Sadio Mane ayaa markaa u hanqaltaagaya u dhaqaaqista mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka sida Barcelona ama Real Madrid halka laacibka reer Brazil Roberto Firmino hore u xaqiijiyay in heshiis shakhsiyeed marka uu la gaaray kooxda Bayern Munich ay ka dhisan horyaalka Bundesliga wadankaasi Germany balse tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool macallin Jurgen Klopp ayaa xusay in saddexdiisa ciyaaryahan wali kalsooni weyn uu ku qabo aysan meel kaga dhaqaaqi doonin Stadio Anfield inta uu hogaaminayo kooxda kubadda cagta Liverpool
Jurgen Klopp ayaa xusaya in saaxiibo gaar ah uu leeyahay ciyaartoydiisa maadaama uu doonayo xil ciyaareedka soo socda in marka Liverpool ay noqoto mid ay ku guuleysan karto marka la horyaalka wadankaasi Ingiriiska iyo tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. sheekadani waa mil abaal ayaan aaminsanahay ayaa laga soo xigtay tobaraha kooxda kubadda cagta Liverpool macallin Jurgen Klopp, laakiin inta badan ayaa la hadalhayaa in saddexdan ciyaartooy aysan ku sii nagaadi karin mustaqbalka kooxda kubadda cagta Liverpool ayagoo eegan doono inta ay ku guda jiraan xifradooda kubadda cagta kooxaha ugu dambeeyay ay doonayaan in waayahooda ciyaareedba ay ku soo abjaraan. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qorsheynaysa ku dhawaad 12 ciyaaryahan inay ka diri doonaan istaadiyaha Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barca ee ku ciyaarto kadib markii la xusay inay kooxda kubadda cagta Barcelona ay aad u doonayso dhaqaale aad u fara badan si ay u soo hesho bartilmaameedkeeda ku aadanaa suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda. sidaas darteed kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa daneynaysa inay dhigaysato dalabyada ku aadan 12 ciyaaryahan ee waqtiga xaadirka la qorsheenayo in Barcelona ay ka dhaqaaqaan xil ciyaareedkani. xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona ay qorsheynaysa inay garoonkeeda ka dirto waxa kamid ah Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Neto, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Verbo, Arturo Vidal, Martina, Carles Alena, Rafinha, Alcantara iyo sidoo kale xidiga Chiana. dhammaan ciyaartooydaasi waxay ka mid yihiin qorshaha xilligan suuqa ay kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo ay Barcelona u adeegsan doonto xidigaha kale ay suuqa ay ka doonayaan inay markaa kala soo wareegaan xil ciyaareedkani. maamulka kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dhinaca kale waxa ay xaqiijinayaan in xilligan ay oggolaanayaan wiilka reer France N'Golo Kante in gabihanba uu ka dhaqaaqi doono gigada Stamford Bridge. laacibkan u dhashay wadankaasi Faransiiska N'Golo Kante ayaa lagu wargeliyay guud ahaanba inuu ka dhaqaaqi karo kooxda kubadda cagta Chelsea maadaama laacibkani aad loola xiriirinayo kooxaha kubadda cagta Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter iyo kooxda kubadda cagta Juventus. N'Golo Kante ayaa kooxda kubadda cagta Chelsea waxay doonaysaa inay markaa ku iibiso ku dhawaad 65 milyan, balse waxaa soo baxaya warar kale ee kooxda kubadda cagta PSG ee kalisan horyaalka wadankaasi Faransiiska oo markaa cadeynaysa inay doonayso xil ciyaareedkan ciyaaraankaasi N'Golo Kante inay geeyaan magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska. isbedelada ayaana markaa ah in xilligan kooxda kubadda cagta Chelsea ay ka maarmi karto wiilka reer Faransa ee N'Golo Kante. kooxda kubadda cagta Manchester United ee kalisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa dhinaca kale doonaysa inay Inter Milan ay weydiisato ciyaaraanka kooxdaasi Ivan Perisic. لاعبkan u dhashay wadankaasi Kroatka ayaa ama ku qaatay kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee horyaalka wadankaasi Germany, balse Manchester United ayaa markaa xaqiijinaysa in xilligan ay aad ugu baahan tahay ciyaaraankaasi inay ku soo biriyaan stadiooda Old Trafford. tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Oli ayaa doonaya inuu kala xaajoodo arrintaasi madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Inter Milan si xidigaasi Ivan Perisic uu ugu soo degdego imaanshaha stadiga Old Trafford. Inter Milan waxay doonaysaa adduunyadeed gaariga 15 milyan oo lacagta Euro-ga inay ku iibiyaan xil ciyaareedkan xidiga Ivan Perisic maadaama Inter ay qorsheynayso in heshiis joogto ay la saxiixdaan xidiga amaahda ku ah ee Alexis Sanchez ay leedahay kooxda kubadda cagta Manchester United. sidoo kale Ivan Perisic ma ahan kaliya kooxaha Manchester United ee ka dhisan Premier League oo waxa sidoo kale aad loola xiriirinayay kooxaha ay ka mid yihiin Everton iyo sidoo kale Tottenham Hotspur, balse macallin Oli ayaa kalsooni weyn ku qaba halka kooxda kubadda cagta Inter doonaysa inay heshiis joogto ay la saxiixato xidiga amaahda ku ah ee Alexis Sanchez. qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka qaranka wadankaasi Brazil ayaa kula talinaya in xidiga ka tirsan kooxda Juventus ee Douglas Costa uu ku biiro stadiga Etihad ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City maadaama xilligan kooxda City ay horkacayso kooxaha sida weyn marka uu xiiseynaya dalabka ciyaaraankaasi Douglas Costa. labadii toddobaadii ugu dambeysay ee kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay cadeysay in xil ciyaareedkanba ay iska iibin doonaan ciyaaraankaasi Douglas Costa maadaama tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola uu aad ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka xidigaasi waxaana loo arkayaa muhiim. waxaana sidoo kale xidigii hore ee xulka qaranka wadankaasi Brazil ay xusayaan in Douglas Costa uu jaanis xoogan uu ka heli doono garoonka Etihad ee kooxda kubadda cagta Manchester City. xaqiiqdii waan la jecel lahay inuu aqbalo dalabka kooxda kubadda cagta City maadaama ay ku tilmaamayaan Douglas Costa inuu yahay xidig aad u wanaagsan, xamaasadiisa kubadda cagtana ay tahay mid aad u soo jiidanaysa taageerayaashiisa. hadda waxaa la xusayaa in kooxda kubadda cagta Manchester City ay noqon karto kooxda ugu dhow ee heli karta hanashada wiilka reer Brazil ee Douglas Costa oo xilligan la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta City ay noqon karto mid ku guuleysan karta saxiixa ciyaaraankaasi. dhinaca kalena difaaca kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Demiral ayaana markaa doonaya in gabi ahaanba uu ka dhaqaaqo kooxda Juventus isagoo dhageysanaya dalabyada ku aadan kooxaha horyaalka wadankaasi Ingiriiska sida Wolves iyo Leicester City.
jirada Gazzetta dello Sport ayaana markaa shaacinaysa in labada kooxood ee City iyo Wolves ay xaqiijinayaan in xilligan ay doonayaan ciyaaryahankaasi inay markaa ay kala soo wareegaan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus 22 jirkaani ayaana markaa dhaawac xooggan ka soo gaaray dhinaca jilibka kadib soo